ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa galabta boqolaal shacab ah kula jimcaystay beerta nabadda oo kamid ah goobaha dalxiiska ee magaalada Muqdisho si uu shacabka u dareensiiyo in dawladdu ay tahay dawladda shacabka ayna ku kalsoon tahay shacabkeeda. boqolaalkii shacabka ee ku sugnaa beerta nabadda ayuu ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre fursad u siinayay inay la wadaagaan talooyinka iyo fikradaha wanaagsan ee ay doonayaan inay dawladdu ku shaqayso, isla markaana uga mahad celinayay waqtiga wanaagsan oo galabta la qaatay shacabka Soomaaliyeed. ra'iisul wasaaruhu qaarkood shacabka ku sugnaa beerta nabadda waxay si caadi ah oo ay kalsooni ku dheehan tahay su'aalo u weydiinayay ra'iisul wasaaraha dalka iyagoo mararka qaar ra'iisul wasaaraha la kaftamayay. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa shacabkii kala duwanaa ee uu kula kulmay beerta nabadda u sheegay in dawladdu ay ku shaqaynayso rabitaanka shacabka ayna diyaar u tahay inay shacabku la xisaabtamaan waqti kasta, isla markaana ay ka go'an tahay in ay shacabkeeda la wadaagto marxalad kasta oo ay ku sugan yihiin. dadkii ku sugnaa beerta nabadda ee uu ra'iisul wasaaruhu la kulmay waxay u badnaayeen dhalinyaro. qaarkood ayaa la hadlay warbaahinta qaranka waxayna la wadaageen dareenkooda ku aadan in galabta ra'iisul wasaaruhu kula jimcaystay beerta nabadda. runtii maanta aadan ugu faraxsanahay in ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre aan ku kulmo beerta nabadda isagoo maanta nala jimcaystay. waxay inoo tahay farxad dhalinyarada ku sugan magaalada Muqdisho. waa maalin aad ugu qiimo badan waana ku faraxsanahay in ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre maanta aan la kulmo. waxaan ku bogaadinahay ra'iisul wasaaraha in uu sii wado oo bulshada uu sii dhaxgalo si nabadna waxay ku timaadaa bulshada in la dhaxgalo. waxaan rajaynayaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre inuu intaan in ka sii badiyo oo wadanka oo wada booqdo magaalada Muqdisho oo wada booqdo dhalinyarada. wax maanta dadka ugu badan ee Soomaalida boqolkiiba 70 waa dhalinyaro. marka waxaan dhinaca ra'iisul wasaare Cali Khayre xoogga saaro dhalinyarada si nabadda iyo wax ugu qayb qaataan. wallahi ma sha Allah waxaan la soo koobi karin macnaha maanta waa maalinimo Jimco ah aad baa loo damaashaadaya beerta nabadda. aniga khaasatan markaan ra'iisul wasaaraha arkay aad ayay shucuurtayda u kacday oo waxaan aad ugu farxay macnaha sida uu labisan yahay ee Soomaalnimada ka muuqata ee darkeen hiday dhaqanka ah ugu labisan yahay sida yacnaha ay dadku u saameynaya ay u jeclaadeen soo muddo yar u magacaaban xilka ra'iisul wasaarenimada. taas waxay muujinaysaa Soomaaliya inay noqotay mar qura mid isla jaan qaado dhalinyaradeeda iyo dadkeeda waaweyn iyo kulligeedba ay macnaha aysan qabiil loo fiirinaynin ay wadada nabadda cagta saartay ra'iisul wasaarahan uu yahay ra'iisul wasaare qaran. aniga khaasatan aad ayaan taageero ugu ahay ra'iisul wasaaraha u jeclaa shacbiyad ahaan. waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan markii ugu horeysay la kulmo ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre. dareenkayga si guud ahaan u saabsan bulshada reer Muqdisho iyo dareenkayga gaar ahaaneed dhalinyarada Muqdisho. waxaan aad ugu faraxsanahay emotionally inuu ra'iisul wasaaraha aad noo dhiirigelinayo oo noo imaaday. waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga iyo inta hoggaanka dalka noo hay ugu baryaynaa inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala la garab galo waan ugu hambalyeynaa TV qaranka Soomaaliya aad ugu hambalyeynaa. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa markasta xoogga saara inuu sare u qaado kalsoonida shacabka Soomaaliyeed oo hayaan dawladooda. qaarkood badanna ay ku jirto fikrad wanaagsan oo wadankan lagu gaarsiin karo horumar wanaagsan. waxauna go'aansaday in shacabka aan awoodin inay xafiiskiisa ugu yimaadaan inuu ugu tago goobaha lamida beerta nabadda oo ay sida weyn isugu yimaadaan shacabka Soomaaliyeed. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.